madaxweyne Biden ayaa ansixiyay saxiixay maanta in qaniisiinta dadka loo yaqaan LGBTQI iyo qowmuluudka dadka qaniisiinta ay hadda ka bacdi isguursan karaan guurkoodana protect garanaya mas-uul ka noqonaya dowladda Mareykanka iyo constitutionka Mareykanka. sharcigan uu maanta saxiixa ayaa waxaa goobjoog ka ahaa in ka badan in lagu qiyaasay 2,000 dadka qaniisiinta dadku oo qaniisiinta celebrityyaal xisbiga dimuqraadiga xisbiga republican qaar kamid ah. waxaa joogtay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Nancy Pelosi, Jack Schumer oo hogaaminayo senatarada. sharcigan ayaa waxay ku tilmaameen dadka qaniisiinta inuu yahay hormuud taariikhna ee maanta gaareen maadaama Mareykanka ay hadda ka bacdi sharci tahay gobol diidi karan uusan jirin in dadka qaniisiinta ay isgursadaan. sidoo kale guddiga waxbarashada Ohio ayaa maanta ayagana waxay diideen in iskuulada Ohio lagu dhigo sharciyaasha qaniisiinta qaarkood. ciyaarta meel walba joogtaan waa salaamantiin, waa Maxamed Faarax. waxaan yahay labadan arrin ka hor intaan idin soo sheegin, laakiin fadlan haddaad videogan social media ku aragtid dhammaan la wadaag asxaabtaada, fikirkaaga ka dhiibo, Facebook saaxiibiga la noqo, YouTube iga subscribe garee, fikirkaagana ka dhiibo la wadaag dhammaan videogana mar kale asxaabtiina. aan ku bilaabe maxaa keenay maanta in madaxweyne Biden uu ansixiyo qaniisiinta sharcigooda uu ka dhigo legal wax sharci ah constitutionka Mareykanka ku daro? waxaa keenay ayaa la yiri Supreme Court ka ogtihiin 9 inay qof yihiin Mareykanka, 6 kamid waa Republican oo conservative, 3 kamidna waa dimuqraadi. dhowr bilood ka hor waxay sharci dib u soo celiyeen in dumarka ilmaha iska soo tuuraan oo in ka badan 40 sano ka hor dumarka Mareykanka ilmaha iska soo tuuri jireen oo la awal sharci ahaan jiray kontonka Mareykanka gobol Mareykanka badankoodba. sharcigan loo yaqaan Roe v. Wade sharcigan ayaa Supreme Court ka dib u soo celiyay oo diiday hadda ka bacdi inaysan dumarka abortion isku suubin karin, laakiin gobolada ay xaq u leeyihiin inay go'aan ka gaaraan. sharcigan markii dib u soo celiyeen ayaa waxaa la wareystay Justice Clarence Thomas oo nin madow ah oo ku jiro justice systemka oo conservative republican ah. asaga ayaa wuxuu sheegay sharciga Roe v. Wade ee dib u soo celiyeen ee dhici karto same sex marriage ka madaxweyne Obama saxiixay 2015kii in ayadana isla sidaas dib loo soo celin karo. arinkan markuu yiri oo fikradiisa ka dhiibtay ayaa dhammaan dadka dimuqraadiga qaniisiinta Mareykanka ku nool ayaa cabsi soo wajahday maadaama sharciga Obama uu ansixiyay 2015kii wuxuu ahaa executive order, ma ahayn sharci ee Congress-ka Mareykanka iyo aqalka sare Mareykanka soo maray ka bacdi sharci noqday constitution-ka Mareykanka lagu daray. sidoo kale madaxweynaha wuxuu qori karaa executive order. madaxweyne Obama soo qoray wuxuu yiri in dadka qaniisiinta isguursan karaan. marka waa la dib loo soo celin karaa, Supreme Court ka soo celin karo, goboladu ku celin karaa, wuxuu dhigi karaa gobolada ayaa go'aan gaarayo dadka qaniisiinta inay isguursanayaan iyo in kale. sida ognahay gobolada Mareykanka badankoodna waa conservative, waa Republican, ma ogola midaas ayada ah. cabsi ay ka qabaan dimuqraadiga arrinkan iyo dadka qaniisiinta u ololeeya ayaa isla markiiba electionkii ka bacdi waxay keeneen bill ay soo qoreen ay aqalka hoose iyo aqalka sare Mareykanka keeneen. waxay ku hormareen aqalka sare ee Mareykanka November 29, 2022, 2 asbuuc ka hor ayaa la keenay billkan oo magaciisa loogu yeero same sex marriage iyo interracial marriage protection, in la ilaaliyo dadka qaniisiinta guurkooda iyo dadka kala jinsiga ah guurkooda in Mareykanka constitutionkiisa uu ilaaliyo. waxaa aqbashay 61 oo tiri yes, waxaa diiday 36 senator oo tiri no. 12 senator oo Republican ayaa u janjartay aaday taageertay sharciga qaniisiinta in aqalka sare laga ansixiyo maadaama 100 senator ay leeyihiin ay ku jiraan aqalka sare. sharcigii waxaa loo soo gudbiyay marka maadaama aqalka sare laga ansixiyay aqalka hoose ee Mareykanka December 8, 2022, asbuucii hore ayaa la keenay Nancy Pelosi oo ka sii baxayso dimuqraadiga markii ugu dambeysay ahaadaan sanadka laga wareejin doono 20 dhowr bari ka bacdi ayay wareejin doonaan xilka aqalka hoose. waxaa loo wareegi doona Republican, aqalka sarena waxaa loo wareegayo dimuqraadi. maadaama aqalka sare laga wareegayo biilkan isla markii keentay Nancy, biilkan wuxuu ahaan doonaa biilkii ugu dambeysay ansixiso maadaama ay hogaaminaysay aqalka hoose ee Mareykanka in ka badan 6 sano. waxay u kala codeen sidaan 258 waxay taageertay sharciga in qaniisiinta guurkooda sharci laga dhigo, 169 way diideen. 39 Republican ah ayaa taageertay dimuqraadiga oo sharciga sidii ayuu ku ansaxmay
waxaa loo gudbiyey madaxweyne biden isla asbuuciiba maanta ayuu saxiixay madaxweyne biden sharciga kaniisiinta inuu sax yahay aan la diidi karin in la xushmeeyo ayuuna ku daray sharciga kaniisiinta iyo sharciga guurkan in guurkooda la tixgeliyo hadda ka bacdi waxaa ka mid ahaa dadkii celebrityyaasha ah maanta ka qaybgalay Dan Lemon oo ah wariye caan oo CNN aad hadda arkaysaan saashashada aan soo saaray oo ah nin kaniisa nin kala qabo asaga iyo ninkiisa ayaa ka qayb galay xafladii maanta lagu ansixinayay sidoo kale celebrityyaal badan oo kaniisiin oo Hollywood ka socdo ayaa maanta ka qayb galay kuna tilmaamay arrinta inay taariikhi tahay dadka kaniisiinta Mareykan u tahay maadaama loo ansixiyo sharcigan hadda ka bacdina aysan ka cabsi qabin in gobol uu diido guurkooda laysanka guurka ay soo qaadan karaan xaq ay yeelan karaan sida dumarka isku guursan karaan ragga isku guursan karaan xataa dadka sida ugu yeereen gender difference ka ah oo nin inaag ahayn xataa is guursan karaan runaantii arrintan aad ku ooleeya diimaha iyo kasoo horjeedo guurka ku tilmaamay in maanta taariikhdan ku dhacday Mareykanka maadaama hadda ka bacdi ay sharci tahay constitutionka Mareykankana lagu darayo in dadka same sex ka ah kaniisiinta LGBTQ-ga isguursadaan qaas waxaa ka mid ah gabar Republicana oo representative oo tiri in arrinkan meel ku dhac uu ku yahay diinta kiristaanka iyo bini aadanimada sidoo kale balse runtii waxay tahay wadamada reer galbeedka meel walba joogaan wadamada reer galbeedkaba in arrinkan ay la dhacsan yihiin wadamadii wadanka ugu dambeysay oo si constitution si sharci ah u ansixiyo ka duwan si 2015 Obama uu ansixiyay ayay maanta Biden ku dhacday hadda ka bacdi waa sharci waa law gobol diidi karana ma lahan in dadka kaniisiinta ay isguursadaan arrintan kale waa dadka reer Ohio maanta waxaa dhacday guddiga waxbarashada Ohio in ay diideen sharci Biden iyo administrationkiisa wasaaradda waxbarashada Department of Education ee federaalka ee ku soo dareen gobolada u direen oo la yiraahdo Title 6 oo sheegayo in ardayda iskuulada dhigata aan discriminate gareey kalarkooda ayaa waxay ku soo dareen Biden administration in dadka sidoo kale kaniisiintana LGBTQ aan la discriminate gareenin iskuulada lagu baro musqulo gooni loo dhiso dadka transgenderka ah ka wiilka gabadha iska dhigo wiilka gabadhana ninka iska dhigto isqalo in iskuulo gooni loo suubiyo dadka transgenderka oo isqalo oo ninka isqalo naagta iska dhigo in hadduu naag iska dhigo inuu la tartami karo sportska basketballka orodka footballka la dheeli karo dumarka arrintaas markay soo bandhigeen guddiga waxbarashada Ohio waa diiday waxaa ka hor yimid guddiga waxbarashada ee Columbus magaaladan aan joogo oo ku tilmaamay arrintaas discrimination iyo cunsurnimo inay tahay dadka kaniisiinta LGBTQ ardaydana lagu hortagayo xaqooda arrinkan oo muddo dood soo socday bishii 10 maanta ayay guddiga waxbarashada Ohio fadhiisteen waxay u codeeyeen 10 ilaa 7 ayaa sharcigan diiday 7 guddi ayaa ogolaatay arrinkan waxyaalahay diideen qaar amendment ay ku suubiyeen waxaa ka mid ah in musqulooyin loo suubin karin in ay sports isla ciyaari karin ninkaba hadduu marba nin yahay inuu nimanka la ciyaari karo gabadhana hadday gabar tahay inay gabdhaha la ciyaari karto laakiin hadduu iskala xataa in aanan la aqbaleynin iyo waxyaalo badan ayay diideen guddiga waxbarashada Ohio arrintan aan dhaleeceen badan kale kor imaaday guddiga waxbarashada ee Ohio waxaana eedaas waday guddiga waxbarashada ee Columbus Ohio Columbus Octane Franklin County waa dimuqraadi laakiin gobolka state of Ohio in ka badan 12 milyan qof ku nooshahay badanaa waa Republican aqalka hoose ee Ohio iyo aqalka sare ee Mareykanka iyo governorkaba aqalka hoose ee Ohio iyo aqalka sare ee Mareykanka iyo governorkeenaba waa Republican dimuqraadiga waa looga badan yahay laakiin Columbus ayay dimuqraadiga ku badan yihiin halkaasayna awood ku leeyihiin waxaa sidoo kale dhacday December 8 asbuuciina la soo dhaafay Ohio senatorada ayaa codeeyay waxay u codeeyeen guddiga waxbarashada ee Ohio inay ka qaadaan mas'uuliyadda waxbarashada ee ku wareejiyaan xafiiska governorka oo governorkana uu magacaabo director waxbarashada Ohio la saxo hadda ka bacdi wax badan laga bedelo arrintan ayaa aqalka sare ee Ohio ansixiyeen laakiin wali waxaa hartay aqalka hoose ee Ohio inay ansixiyaan
waxaa xaqiiqa oo run ahaantii ah in dad badan isweydiinayeen ohio ma lagu dhigaa waxbarashada kaniisiinta ma loo dhigaa caruurta middle school ka dhigata high schoolka minnesota maalmaha waxaa la maqlayay in lagu dhigo oo waxbarashada la ansixiyay minnesota waa state dimuqraadi ah laakiin ohio republican ayay u badan yihiin maalmahan republican ayay u liicayeen awal wuxuu ahaa stateyaasha isfilibgareeyo laakiin alaaba maalmahan waxay noqdeen republican arrinkan dad badan ay soo weydiiyey baaris dheer ayaan ku suubiyey weli waxbarashada ohio khaasatan magaalada columbus oo looga shakisan yahay maadaama dimuqraadi mas-uul ka yihiin in aanan weli caruurta wax la barin oo kaniisnimada aan weli la barin laakiin nin waalid ah oo isoo wacay is aragnayna ii yimid wuxuu igu yiri oo soomaali ah iskoolkiisa ardayda dhigato macallimiinta ayaa soo wacay waalidiinta iskuulkan tago ayuu yiri iskuulka markaan tagnay waxaana loo sheegay uu dhahay sanadka dambe in caruurta la bari doono xuquuqda LGBTQI xuquuqda kaniisnimada iyo kaniisiinta iyo qoomuluudnimada in iskuulka lagu bari doono buwaagtooda lagu bari doono macallimiin ay bari doonaan iskuulka hadda ka bacdina arrintan ay sharci ka ahaan doonto waxaan kula murmuu dhahay macallimiintii iyo iskuulka headmasteradii noo yeeray ayaan la murm waxaan ku yiri aniga muslim ayaa ahay ma ogeli in caruurteyda la baro kaniisnimo waa iga diidanayo waxay dhan arrintan waxay ka socotaa kor madax ka koreyso ayaa ka socotaa arrinkan oo arrintan wato waxaan ka qablana ma karana ma laha dhehen marka la socda waxaa la sheegayaa sanadka dambe in arrinkan laga hirgelin doono Columbus Ohio ayaa la leeyahay sidoo kale guddiga waxbarashada ee Columbus Ohio arrinka kaniisnimada way rabaan oo waxay rabaan inay iskuulada wax ku baraan Columbus iyo countyga hoos keenaan iyo districtiga hoos keenaan waaliyaal nahar ee Columbus u foojignaada sidoo kale waalidiinta Minnesota ama Mareykanka meel walbo joogo fadlan ogaada caruurtiina waxay bartaan iskuulada ka qayb gala doodaha iskuulada iyo shaqo ka qayb gala State Board of Educationada oo countyga iyo stateka iyo citygaba ka qayb gala weydiiya arrinka waxaa hubaala in Mareykanka iyo wadamada dhammaan reer galbeedkaba Yurub meel walbo laga dhigaaba laakiin Mareykanka ugu dambeysay haddana laga bilaabay istidaal badan arrintaana uu hogaaminayo madaxweyne Biden administrationkiisa in xataa ay ku soo daraan iskuulada ku amraan iskuulkii diidaana inay xuquuqda ka goostaan waxay ku dhaheen stateka Ohio iskuuladiisa in xataa hadday diidaan inay ka goosan karaan lacagaha fundinga marka arrinkan waa arrin halisa fadlan caruurtiina wax dhigtaan ka qayb ogaada waayo waa muhiim ayagoo yar caruurta in la barin waxay yihiin waayo ku wareerayaan magacyaal gooni lagu yeerayo cunug la leeyahay waxa rabto iskugu yeer waxa rabtaa noqon kartaa qaniis ama wiil kale waa jeclaan kartaa hadda gabartana gabar kale waa jeclaan kartaa waa arrin halisa walaalayaal fadlan la socda Mareykanka ku nool lahay wadamada reer galbeedkaba dad badan oo waalidiin ah ayaa caruurtooda la cararay geeyay Afrika iyo meelo kale sida waxbarasho fiican oo helaan maadaama wadamada reer galbeedka ay ka bilaabeen arrintaas ka bilaabatay waxaan soo gunaanadayaa dadkii la cararo waa la carari karaa xaqay u leeyihiin laakiin sidoo kale in la suubiyo iskuulkana lagu dhigo iskuul home schooling la suubisto iskuulo gooni ah la suubisto communityyaasha isku tagaan oo xaqoo loo dagaalamo oo arrintan lagala hadlo siyaasiyiinta waa arrin muhiima waa arrin aan la dhayalsan karin in caruurta lagu shubo ayagoo yar waxaanan maskaxdooda awood lahayn waa arrin saameyn doonto waxbarashadooda iyo koriinkooda dhib weynna u keeni doonto intaas ayaan waana idinkaga tegayaa arrintan faafiya lana socda meel walba joogtaan qaasatan wadamada reer galbeedka waa maxamed faarax videoga la wadaag dhammaan asxaabtiina waa mahadsantihiin